habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysay waa markale iyo barnaamijkeeni wararka iyo caawa qodobadaan idinku hayana waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta soo caga dhigtay garoonka Banqiyaame International Airport ee ku yaala magaalada Laascaano madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa ku wehelinayay wafdi aad u ballaaran oo ay kamid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo maanta isaguna isugu yeedhay saddexda dhardhaar ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa fulinta garsoorka iyo baarlamaanka qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idin hayaa halkan aad naga daawanaysaan waa Kennedy Media anigoo Kennedy barnaamijka idin la socodsiinaya saaxiibayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa maanta soo caga dhigtay garoonka Banqiyaame International Airport ee ku yaala magaalada Laascaano madaxweynaha safarkiisa waxa ku wehelinayay wafdi aad u ballaaran marka laga reebo ciidamada tirada badan ee uu watay waxaana kamid ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi kale oo ballaaran oo isaguna ka socday dhanka maamulka Galmudug oo hogaaminayay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor maamulka ka taliya bariga Sool ee isku magacaabay waqooyi bari ayaa si weyn u soo dhaweeyay wafdigaasi ballaaran ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa kale oo xusid mudan jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaduna gobolka Sool uu ka mid yahay dalkeeda Soomaaliland ayaa dhaqaaqyadaasi ka socda gobolka Sool wax talaaba oo ay ka qaaday ilaa hadda aanu jirin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud kasokowin halka lagu soo dhaweeyay hadana wax khudbada ama hadala oo ilaa iyo hadda ka soo baxay ma jirto magaalada Laascaano oo la ogaa ayaamahanba inay ku sugnaayeen ciidamo aad u fara badan iyo wafdi ballaaran oo hordhaca oo hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi iyo waliba ciidamo badan oo kamid ah mucaaradka Puntland ayaa maantana waxa soo buuxlaafiyay oo ay la ciirciiraysaa wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ciidamo fara badan oo indhoweydba lagu soo daadgureynayay magaaladaasi Laascaano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta isaguna waxa uu isugu yeedhay oo uu qada sharaf u sameeyay saddexda dhardhaar ee looga taliyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ay kamid tahay nabadgelyada iyo ka hortagga xaaladaha dhaqdhaqaaqa ee ka socda gobolka Sool guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda iyo dawladeeda ayaan maanta wax dhaqdhaqaaq ah oo weyn sameyn iyadoo dadkuna ay iska faraxsanaayeen oo aad moodaysay inaan deero hirdin gobolka Soolna aan wax dan ah oo haba yaraatay laga leeyahay aanay jirin waa sida ay jawiga iyo xaaladdu muuqatay daawadayaal halka nagala socotaan wali waa Kennedy Media anigoo Kennedy barnaamijka idin la socodsiinaya muuqaalkan hadduu ku soo gaadho share garee fadlan YouTube kana subscribe basar haddii aanad hore ugu xidhnayn haddii aad hore ugu xidhnaydna aad baad u mahadsantahay nabaday